اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa gudoonkii laga doortay baarlamaanka aqalka sare ee uu ku soo baxay gudoomiye Cabdi Xaashi iyo labadii ku xigeen. waxaan leeyahay hambalyo, waxaa idin saaran mas'uuliyad weyn dalka iyo dadka iyo diinta inay u adeegtaan samata bixisaan. sidoo kale caawa waa habeen aad u qiimo badan, qof walba Soomaali ah damiir leh macna weyn ugu fadhisa doorashada caawa dhacday ee uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe. waxay muujinaysaa baarlamaanka Soomaaliyeed inay yihiin baarlamaan cadaalad ah oo cadaalad u badan. waxay cadeynaysaa sifo walba ee qofka u maalgeliso ama aad soo saarto ama aad waqti u geliso, mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidda uu ugu talagalay cidaan ahayn inaysan mas'uuliyad helaynin. sidoo kale baarlamaanka caawa meeshaas uu cadarada ka dhigay bisha Ramadaan ee barakaysan dhaartii ay dhaarteen ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad joogtay aayaha dalka walwal ka qabtay, sida aad ugu farxiseen si lamida in gudoomiye ku xigeenadana aad u doorataan dad macna iyo miisaan leh. waqtiyadii muxuu ahaa ugu dambeeyana eedihii dalka laga galay aan qayb ka ahayn. caawa waa habeen macna weyn ku fadhisa ummadda Soomaaliyeedna tusaysa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu mar walba xaq la jiro. cid walba oo dhaqaale wax ku raadinaysa, xoog wax ku raadinaysa, farsamo walba wax ku raadinaysa, waxaysan aaminin in qadarta Ilaahay ay mar walba sarreyso. cid Ilaahay wax ugu talagalay ay guuleysanayso. waxaan leeyahay Soomaaliya meel walba ay joogto guuleysta. dawladda Soomaaliyeed iyo sharafka Soomaaliyeedna caawa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa badbaadiyay. waxaan si gaar halkaan ugu hambalyeynaa ugu mahadcelinayaa kusimihii gudoomiyaha baarlamaanka oo nin oday qiimo badan ah. adeerkay waxaan leeyahay adeer macaan waa mahadsan tahay. dalka iyo dadka iyo diinta sidii lagugu dhaariyay ayaad waajibkaadii iyo mas'uuliyadaada ugu soo baxday, iyo guud ahaan tiimkii kula shaqeynayay ee guddiga mudan Cabdirasaaq oo odaygu u ahaa. waxaan sidoo kale aan la hilmaami karin qof walba Soomaaliyeedna inuu xuso u duceeyo ay waajib tahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan leeyahay ra'iisul wasaare cizigaada iyo sharaftaada iyo abaalmarintaada Ilaahay agtiisa ayaa ka helaysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.